maanta waxaa farxad weyn ii ah in aan imaaday dalka Algeria aan daawanayo walaal magaca intaan ka imaatay waxaan ka imaaday Muqdisho waxaan deganahay degmada Daynile Somalia 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 Somali Valley maanta waxaa farxad weyn ii ah in aan imaaday dalka Algeria aan daawanayo wiilashii Soomaaliyeed oo ciyaarayaan ciyaartii under 17ka African Cup-ka waa think markii koowaad waa sida la sheegay aan hadda waxaa jooga Nelson Mandela Stadium dabcan ciyaarta group adag ayaa ku jirna caawana waxa u bixaynaa dalka Algeria oo wadanka lagu hayo waa tough game inkastoo ciyaartooy badan oo wadanka ciyaar last time ciyaareen African Cup marka soo qaadeen Eastern African Cup-ki qaarkood ciyaareenin different reason ay ka maqayeen oo ugu horeeyo maxaa la hayaa Cabdi Xafid oo last minute laga baxshay balse still waxa aaminsanahay wiilasha inay guul soo haweyn doonaan haddana stadiumka ayaa u socda ciyaartan daawanaya and inshallah as you can see Awale the blue flag is flying high for the first time we should be proud of the wiilashanity because wax fiican ayay sameeyeen and inshallah it won't be the last time it's on Sameyan and stay positive and make sure support. We're going to the stadium, the game with the boys there. How much you will get the score today? Well, I don't know. I mean, Algeria is one of the favorites, but I'm hoping today is going to be our day, mate. Like, I will give it 3-2. 3-2. Well, 3-1. 3-1. Yeah. Damn. We are the winner. Well, we shall see. Algeria. I know Algeria, but we Somalia as well. don't. The moment we've been waiting for so long. Finally, this first time. wiilasheeda Soomaaliyeed ciyaarayaan stadium waxaan nacdoon 3-0 في Soomaaliya insha Allah 3-0 waa maalin taariikhi aan loo wadaarin sanado badan oo soo socda no matter the outcome of the result-iga Somalia 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 Somali Valley 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 Somalia Somalia لا ايش يدير لي Thank you. That's it. Yeah, thank you, man. Thank you. That's it? Yeah, that's it. walaal magaca intaan ka imaatay waxaan ka imaaday Muqdisho waxaan deganahay degmada Daynile gaar ahaan gubta oo soo muuxada u imaatay inaa ciyaarta daawato oo Soomaaliyeed ciyaarta support gareyso waa inaa ciyaarta daawado oo xiiseeyo Soomaaliya aan ahay okay ma sha Allah waanu ku faraxsanahay insha Allah toogta dambe soo socota guulaan rajeynayna insha Allah
what do you think ciyaarta marka daawatay maxay kula tahay casharka u noqon kartaa wiilasha Soomaaliyeed maadaama laba ibran looga raabay istii ciyaar fiican soo bandhigeen maxay kula tahay ay ka baran karaan cashar ciyaartan ما شاء الله ciyaartan 10 oo tahay 10 ciyaarta dambe soo socoto waxaan rajaynaynaa guul insha Allah taala laba yeebar waxba maahan tan soo socoto insha Allah anagana 4 yeebaran ku reedoona insha Allah well against I think in Angola tahay umaleynaa 4 yeebar waa adag tahay laakiin of course waa jecelna inaan ku reeyno marka hadda ciyaarta ay soo bandhigeen marka daawanaysay iyo maadaama even ciyaartoy badan ay ka soo tageen oo tournament hore raayeen kuwa cusub lagu soo diray diidin in wax ka bedeleen mise waxay ka dhimeen maxay ku tahay ما waxbay ka bedeleen waxbay ka bedeleen si fiican oo ciyaarayeen ciyaartooduna way fiicneed difaacooduna ma sha Allah waa adkay laakiin xoogaha yar bas waxa ka dhiman kaliya waa tabaryaraha hayso dhinaca oo difaaca insha Allah inay soo dhisaan كرجيني إن شاء الله. بس حلو ما عيارته مركز عيارين حاجة physical إني حنا في عناين يبان ده جول كوات ويعني قلد أنا كنجي إمارة لكن وبروني كوبي عدان وأنوي فإن شاء الله next game do you think هاد جانس هاي سنة أكوسو كل فات كنا وقرنا next time يعني لبعض عيار صعود عيار صعود وحرجينا إن شاء الله نقول شاب وحاول ما أنت وحاول ما waxbay ka barteen tan soo socoto waxaan insha Allah guul rajeedoona insha Allah ciyaarta koowaad ma helin resultiga aan jecleen laakiin sida agrabti u daawaday training ay sameynayeen iyo encouragement-iga uu macalinka siinay macallin Nuur waxay og tahay ciyaar soo socota insha Allah in guul fiican laga keeni karo waxaan jeclahay in aan mahad celiyo walaalkii qalinle iyo media teamka